dhul weyn oo hadda ka hor laga kiciyey dad masaakiina una dhow eelaboorka muqdisho oo aadan cadde ayaa hadda waxaa ka socdaa dhismo aad u baaxa weyn. dhismahaas aan la ogeyn cidda dhisanayso iyo cidda kaleba. gaariyaal aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin cagaf-cagafyo ayaa dhismahaas ka qayb galaya. ilaa iyo hadda dhismahaas cid ogaan karta ma jirto cidda dhisanaysa cidda ay tahay. midda kale dowladda Soomaaliyeedna war iyo wacaal midna kama hayso. wasaaradda howlaha guud iyo dibudhisinta iyadana warba kama hayso. mar ay booqdeen wasaaradda dibudhiska iyo baarlamaanka aad ayay ugu baraarugeen, waayo waxa ay arkeen dhismo baaxad weyn oo ka socota meeshaas oon cidna ka warhaynin. mar ay hadlaayeen hadalkooda waxaa ka mid ah nala daawada. mashruucan waxaan ka war helnay 2 maalmood ka hor wax ilaahay abuurtay oo wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska iyo guriyeynta oo dalka Soomaaliya dibudhiskiisa oo dhan mirnaas kaaboon u xil saaran wax ay ka warqabtaa ma jirto. markii shalay taanimid iyo daraad isaga soo daba noqonaa waana loo jooji waayay. ummadina waa laga raray waxa ka socda u jeedaan ilaahay baa idinku dhaariyay bal fiiriyo wax ka socdo yaa dhisanayo dhulka yaa iska hortiisaba war dhulkii ma wareejin dhulkii miska wareejin hortaas wareejin Soomaaliyeed dhulka malihin saacada laga bilaabo wallahi billahi tallahi waa wareejin dhulka Soomaaliya manhim muwaadiniin manhim qof wadani oo Soomaaliya waxa ma sameyn karo qori ka soo sheegay xilwaagii goray qori ka lagu dhufan karo diyaaradda soo degayso sakuurka diyaaradda airportka ma saxsana. arrintaa waxaan u aragnaa arrin sharci darro ah, arrin in lagu xadgudbayo shuruucda dalka. wixii hanti qarana hadday dhul tahay iyo hadday dhismo tahay mas'uuliyaddeeda wasaaradda howlaha guud baa iskale. waa nasiib darro maanta xilligan mashruuca intaa leego waa mashruuca ugu weyn ee maanta Soomaaliya ka socda inaan la garanayn cidda dhisanaysa iyo cidda wadata iyo ujeedadiisa iyo waxa looga dan leeyahay midnaba. waddanka bilicdiisa in aad loo soo celiyo aaday u fiican tahay, laakiin maxaa lagu soo celinayaa? dadka dhisanayo waxa ay yihiin war looma hayo. marka horena waxaa laga kiciyey dad masaakiin ah oo rayid ah. faaliyaha qaranka markuu u kuur galay xogta uu helo waxa ay tahay dadka dhisanaya inay yihiin hay-ada ajaaniib ah. laakiin aaday u fiicnaa lahayd dadkaasi inay ka haystaan dowladda fasax buuxa. markaas waxay noo ahaan lahayd bilic iyo rayn iyo qurux magaalada ku soo korodhay. hadda balse waxay noo tahay niyad jab maadaama aanan aqoonin dalkeena waxa dhisanaya. ganacsatada Soomaaliyeed waxaan u farayaa faaliyahan oo u farayaa meelaha dudunsan in ay noo dhisaan sida ay bilacda magaalada ay u soo noqoto intay ajaaniib ay naga dhisan lahayd. aamina Mucuu Cabdulle,